بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامجكنا maanta waxaanu diradda aanu ku saari doonaa isla markaana aanu ku jexjeexi doonaa xaaladaha caafimaad ee laga helo qofka caba shiishada waxyaabaha uu la kulmayo caafimaad ahaan iyo weliba muuqaal ahaan barnaamijkana ayaan maanta diradda aanu ku saari doonaa haddii aad horey aadan qayb uga hayn channelkeena xulashada dunida live share subscribe weliba commentiga qaybaha hoose ee nagu dhaaf aragtidaada ku aadan waxyaabaha aanu soo dhigno anigoo sheedayn la socodsiinaya kusoo dhawaada dawadayaal daraasad ka soo dhawaantan ka soo baxay isla markaana lagu daabacay shabakada ka faallota arrimaha caafimaadka laguna magacaabo live science ayaa lagu xoojiyay in biyaha ku jira badeecadaha lagu nuugo ay leeyihiin waxyeelo la mid ah tan sigaarku leeyahay isla markaana ay biyahaasi wataan carbon monoxide iyadoo tubooyinka uu marooqiiqa badeecada la sheegay inay qaadi karto cudurro ay ka mid tahay kansarka shiishadu waa mid ka hal saddexaad muqaadaraadka lala qaybsado iyo kan afraad weliba kan labaatanaad muqaadaraadka u khatarta badan dunida shiishadu ama tubaakadu waxyaabaha ay ka kooban tahay ay ku kala duwan yihiin waxaana khatar iyo ka halis badan tahay sigaarka tusaale ahaan sigaarku waxa uu ka mid yahay muqaadaraadka sababtoo ah waxa lala qabsado qofka isticmaaloon markasta uu baahan yahay dunida maanta wadamo badan ayaa shiishada laga isticmaalaa waxaana ugu badan dalalka bariga dhexe sida Saudi Arabia, Imaaraadka, Masar, Yemen, Morocco, Iran, India, Bangladesh, Djibouti, Soomaaliya iyo weliba Koonfur Afrika iyo wadamo badan oo caalamka shiishadu waxay cadow ku tahay caafimaadka qofka cabaya weliba si xad dhaaf ah bay u dhaawacaysaa caafimaadka qofka cabaya wayna ka saameyn badan tahay marka loo eego qofka sigaarka cabaya waxyaabaha ay ka kooban tahay shiishada ayaa waxyaabo kala duwan sida rinjiga la mariyo derbiga guriga kaasoo kalar looga dhigo shiishada rinjiga wuxuu dhaawac u geystaa xididada dhuunta ee qaaca soo jiida ee qanjirada ugu dambeynta waxa uu sababa qanjiro xanuun ee qofka oo candhuufta ceshan waaya cabitaanka shiishadu waxay keentaa xanuuno fara badan isla markaana burburisaa dhaqaalaha qofka isticmaala shiishada laga sameeyo sigaarka waxaa ku jira kiimikooyin fara badan oo ka mid tahay nicotine taasoo ah darooga halisa isla markaana waxyeelaysa caafimaadka qofka isticmaalaya in ka badan 60% dadka isticmaala shiishadu waxay u dhintaan xanuuno la xiriira ayada la isticmaalo isticmaalka shiishadu waxa uu keeni karaa cimri degdeg midabka oo isbedela ilkaha casaada iyo xanuuno kala badan halis u keeni karaa qofka isticmaala sida kansarka sanbabada ku dhaca kansarka dhuunta kansarka faruuryaha iyo kuwa kale aad u fara badan kansarka noocyadiisa kala duwan sida ku dhaca sanbabada guri mareyka sidoo kale waxaa halis ugu jira cudurrada ku dhaca sanbabada sida chronic bronchitis weliba cudurro kale waxaana ku keeni kartaa cudurrada wadnaha ku dhaca sidoo kale waxay kugu sababaysaa shiishadu cudurrada ku dhaca ciridka oo shiishada ay ku jirto maadooyin lagu magacaabo nicotine iyo dhaawacyada ciridka waxayna keentaa caabuqa qofka bini'aadamka ku dhaca dumarka balwada shiishada leh caruurta ay dhalaan waxay khatar ugu jiraan cudurrada ku dhaca hawo mareyka sidoo kale miisaanka caruurta ay dhalaan waxa uu ka yaryahay marka loo fiiriyo hooyooyinka aan balwadaas lahayn caruurta ay dhalaan sidoo kale dumarka balwada leh waxa ay khatar ugu jiraan premature labor ama fool aan waqtigeeda la gaarin sidoo kale ragga balwadaas ama shiishada leh inta badan ma soo saaraan sperm ama mani caafimaad qabta taasna waxay kugu sababaysaa in minida ay yaraato life span shiishadu waxay yareysaa awoodda ragga oo ay ku soo saaraan shahwada ama minida qofka caba shiishada waxay u egyihiin inay qofku aysan xiiso ku qabin wax badan isla markaana ay u keento caafimaad isagoo isu tusanaya inay shiishadu ay ka khatar yar tahay marka loo eego sigaarka cabitaanka shiishada ayaa ah midna ay Soomaalidu dhaqan u lahayn una baahantii shacabka Soomaaliyeed iska wargelin khatarta ay leedahay cabida shiishadu waxay leedahay dhibaatooyin caafimaad oo degdeg ah kuwa muddo dheer saameyn ku yeesha haddii ay balwadaasi la sii wado wadna garaac ama wadnaha u garacmo zayd noqda ayaa laga helaya haddii wadnaha u garacmo uu batana waxa khatar ugu jirta in wadnuhu shaqadiisa uu gabo oo awoodi waayo jirka intiisa kale dhiig siiyo maxaa yeelay wadnuhu waa xubinta kaliya ee jirka dhiiga gaarsiisa ama stroke uu galo maskaxda dhiig kaga furma sidoo kale waxa iman kara haddii wadnaha shaqadiisa uu gabo dhimasho degdeg ah shaqada sanbabada iyo waliba dhantaalada qofka waxa uu dareemayaa daal oo neefta ah sidoo kale hurdada yarata shuban baahi badan caajis ama awoodiisa qofka aad u daciifta madax xanuun walwali warayb cara joogta baladu shiishada haddii ay soo bilowdo dhowr sano ka hor ilaa haatan ay weli hawshaas aad leedahay waxaa khatar ugu jirta cudurrada soo soca
soo socda runta oo ku qalasha waxaa midda aad ay u wadaagaan dadka inta badan isticmaala isla markaana isu dhiidhiiba tubada lagu wada cabo taasoo ay keeni karta in infection degdeg ah qaado oral herpes waa infection ku dhaca afka waliba tuberculosis ama qaaxada hepatic noocyadiisa kala duwan bakteeriyada gaaska keenta ee loo yaqaan H. pylori maadaama ay macquul tahay in qofka aad la wadaagto ay jiradan isagu ay hayso arrimahan oo dhan marka loo fiiriyo cabitaanka ama dhuuqinta shiishada ayaa qayb ka ah waxyaabaha dunida dacaladeeda haatan sida aadka ay uga cabanayaan dhaqaatiirta qaybeeda kala duwan aanu soo qaadano madaxa ka hortaga dhaawacyada alkoholika ee tubaakada ee dalka Sweden Thomas Hebelveld ayaa sheegay in baaris lagu ogaaday in shisha cabistu ay ka xun tahay sigaar cabista waxaana la sheegay in 20 ilaa halkii saacadood ay u dhiganto adigoo cabay 100 sigaar ah kasarada laga qaado shiishada waxaa inta badan ay keenaan in dadku ay si aad isu qaadseen cudurrada maadaama la sheegay in inta badan dadka isticmaala qaarkood caafimaadkooda aan wanaagsanayn hal saacadood shiishada cabtid waxay u dhigantaa baa la yiri in ka badan 200 oo sigaar adigoo cabay dadka ma aaminsan sigaarku dhib badan yahay waana dad iska netaraya halista shiishada ama dad been loo sheegay waxa kale oo la arkay in kansarka ku dhaca afka uu badan yahay dadka shiishada caba marka loo fiiriyo dadka sigaarka caba wadnaha aad u garaacma isla markaana sababi karo in aad isla markiiba aad geeriyooto arrimahan oo marka la fiiriyo ayaa waxa soo baxaya in inta badan dadka isticmaala shiishadu ayagu ay inta badan ay yihiin kuwo habeenadii isugu yimaado goobo lagu cawiyo sida hoteelada ee maqaaxida ku yaala dunida aynu ku noolnahay ugu badnaanay wadamada Carabta inkastoo Soomaaliya noqotay meelaha sida aadka haatan looga helo isla markaana looga isticmaalo shiishada ayaa waxay noqonaysaa in goobaha dadka isugu yimaadaan in ka badan 20 ama 30 qofood oo iyagu goob kaliya isugu yimaada isla markaana aad arkayso inay isticmaalayaan wax ka yar 5 dhalo shiishada ah isla markaana la isu dhiidhiibo taa oo meesha keeni karaysa inay ku dhacdo dadka cudurro aan dadku inta badan iyagu aan qabin kuwa kale ay qabaan ay halis geliyaan naftooda goobta lagu cabo shiishada ayaa noqonaysa mid aan u ekayn goob nadiif ah oo inta badan ay u egtahay marka aad eegto goob nadaafadeedu aad u liidato isla markaana cudurro fara badan laga qaadi karayo arrintan ayaa inta badan magaalooyinka guud ahaan Soomaaliya haatan waxay ku noqotay mid cajaa'ib ah oo dadka intooda badan ay la fajiceen waxaana laga soo miiguuriyay arrimaha dadku sida ay sheegaan wadamada Carabta qaarkoodna laga keenay wadamada Mareykanka iyo Yurubta dadku ku soo guriyo noqday gudaha dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin in shiishadan iyagu ay keeneen gudaha dalka shiishada ayaa loo kala qaybay laba qaybood mid dala ku jirta isla markaana biyo lagu isticmaalo iyo mid electronic ah oo inta badan loo isticmaalo dab ama electronic taasoo lagu qaato gacanta waxaana haatan laga isticmaalaa dalkaasi UK isku soo wada duuba xaaladahan oo kale markii ay gaarto dhimashada degdega ah maqaarka qofku isbedela wajiga qofku isbedela iyo waliba caruurta haweeneyda shiishada caba oo ku dhasha miisaankooda inuu yaraado minada oo kugu yaraata ragnimadaada hoos u dhacda intaasi oo dhan waxay qayb ka yihiin wadna garaac zaid ah qayb ka yihiin haddii aad isticmaalayso shiishada isla markaana in badan aan ku jirtay waxaa arkaysaa waxyaabo fara badan oo soo sheeganay inay wadnahaagu garaacayso saadiyah walwal iyo waliba hurda la'aan iska yaree si aad uga baaqsato in cudurrada aan soo sheegnay oo dhan ay kugu dhacaan isla markaana haddii aad awoodooda ay tahay inaad cabista shiishada aad gabi ahaanba iska joojiso waayo caafimaadkaad uma wanaagsana qof walba oo isticmaala rag iyo dumarna waxaan kula talin lahayn in iyagu ay joojiyaan isla markaana ay ka fogaadaan khataraha caafimaad ee laga furan karo isticmaalka ama dhuuqida shiishada